Bismillahirrahmanirrahim kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka Halkudhig News haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade waxaa ka mid ah amiirka shabaab oo qaraxyada muqdisho ku xigeenadiisii xilalka uga qaaday dagaal xoogan oo shabaab iyo ciidanka xooga dalka ku dhexmaray agagaarka marka Kamaal Guutaalo oo go'aan aan laga filin ka soo saaray doorashadii madaxweyne Qorqor Amnesty International oo ka dalbatay dowladda Kenya inay qabato Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya baxsad ka ah iyo xildhibaanada ka soo jeeda Puntland ee labada aqal oo qodobo kulul ka soo saaray hadalkii wasiir Cabdullaahi Godax haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelina taariikhdu waxay tahay 4 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowno qoraal ka soo baxay hay'adda NISA hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ayaa qoraal ay xalay soo saartay shaaca uga qaaday khilaaf weyn oo ka dhex jira kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasi oo horseeday isbeddello weyn qoraal ay NISA soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiri Abu Cubayda uu mahadkaratay iyo Bashiir Qoorgaab ka soo saaray golaha fulinta ee xarakada shabaab kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ka hayeen xarakada NISA ayaa sheegtay in sababtu Axmed Diiri u qaaday talaabadan ay tahay kadib markii ay dalbadeen joojinta qaraxyada joogtada ah ee lagu beegsado shacabka magaalada Muqdisho xubnahani NISA ma aysan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer mana shaacin sida ay ku heshay xogtan xasaasiga ah ee kooxda Al-Shabaab dhexdeeda ka timid sidoo kalena ma jiraan ila wareedyo si madax bannaan u xaqiijin kara warkan hase yeeshee qoraalka ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab ay sheegtay in weerarkii 28kii December ee X-Control Afgooy sanadkii dhamaada 2019 ka dhacay lagu dilay in ka badan 80 qof oo badankood ahaa dad shacab ah Al-Shabaab ayaa qirashadaasi ka sukow waxay raaligelin ka bixisay dadkii shacabka ay halkaasi lagu laayay taasi oo ahayd tilaabo aan looga baran labada nin ayaa ka soo kala jeeda gobolada dhexe waxaana ay awood badan ku lahaayeen hoggaanka Al-Shabaab waxaana madaxyadooda dul saaran lacag gaaraysa $5 milyan oo Mareykanku ku doondoonayo cidii keenta akhbaar ku saabsan halka ay joogaan haddii arrintaani xaqiiqo noqoto waxay noqon doontaa in mar kale Al-Shabaab khilaaf dhanka fikirka ah uu soo kala dhex galay hoggaankooda sare kadib Mukhtaar Row iyo Sakariye Ismaaciil oo horey uga mid ahaa saraakiisha sare Al-Shabaab oo ka soo goostay ururkaasi kadib khilaaf dhanka fikirka ah oo soo kala dhex galay hoggaankii hore ee Al-Shabaab Axmed Godane iyo Abu Zubayr qoraal kooban oo ka soo baxay hay'adda NISA ayaa sidan u qornaa Axmed Diiriye horjoogaha argagixisada Al-Shabaab ayaa ka saaray mahadkarata iyo Bashiir Qoorgaab golaha fulinta xarakada kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay hayeen kadib markii ay ka dalbadeen horjoogaha Al-Shabaab joojinta qaraxyada joogtada ah ee lagu beegsado shacabka Muqdisho Al-Shabaab ayaa xalay dagaal xoogan waxa ay ku qaadeen saldhig ku yaala deegaanka markii ay leeyihiin ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya waxaa xalay fiidkii shabaab weerar xoogan ku qaadeen fariisimo ay ciidamada xooga ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo qiyaas ahaan u jira 2 kiiloomitir dagaalka ayaan la isku adeegsaday intuu socday hubka noocyadiisa kala duwan ilaa haatan lama hayo xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka labada dhinac ka soo galgaartay inkastoo dadka deegaanka ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac Amnesty International ayaa ka dalbatay dowladda Kenya inay qabato Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland oo ku sugan Nairobi kadib markii uu ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa ka ku yaalay Muqdisho hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa qoraal ay soo saartay uga dalbatay dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan isla markaana ay u gacan geliso dowladda Soomaaliya si maxkamad loo saaro war-saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Amnesty International ay ku sheegtay in Cabdirashiid Janan loo qabtay dambiyo culus 31 Agoosto ee sanadkii hore 2019 loona balansan yahay in cadaaladda la marsiiyo Amnesty International ayaa intaas ku dartay in ay ilo xogogaal ka heshay warka ku saabsan in Janan uu ku sugan yahay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya agaasima ku xigeenka Amnesty International ee bariga iyo geeska Afrika ayaa yiri waxa la aqbali kara ma aha in Cabdirashiid Janan oo lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka yahay dambiye xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo kuwa ka dhanka ah bini'aadanimada
uu isku dayo inuu ka baxsado cadaaladda. Amnesty waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiir janan si degdeg ahna ugu gacan geliso dowladda Soomaaliya oo ka soo baxsaday, waxayna ugu baaqday dowladda Soomaaliya in maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo aan dib loo dhigin. Maamulka Jubbaland ayaa horay intuu xirnaa Cabdirashiid Janan u dalbaday in si dhaqso leh lagu soo daayo maadaama wasiirkii amniga Jubbaland saaxiibna dhowna ay ahaayeen Axmed Madoobe. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28 Janaayo bishii aan soo dhaafnay, isla markaana wuxuu 31 Janaayo ka degay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland. Isla maalintaas diyaaradna ayuuna ka raacay Kismaayo isagoo aaday dalka Kenya. Macda dowladda Kenya go'aankii ka qaadan doonta codsiga hay'adda Amnesty International iyadoo Nairobi ay xulafo la tahay maamulka Axmed Madoobe uu Janan ka tirsan yahay, kaasoo ay la xifaaltamaan dowladda Soomaaliya. Kamaal Guutaale ayaa go'aan laga filin ka soo saaray doorashadii Qorqor. Kamaal Daahir Guutaale oo kamid ahaa musharaxiintii ugu tunka weynaa qabashada xilka madaxweynaha Galmudug ayaa war ka soo saaray mowqifkiisa ku aadan doorashadii shalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee lagu doortay Axmed Kaariye Qorqor. Kamaal Guutaale oo kamid ahaa musharaxiintii mucaaradka ay qaadacay doorashada ka qaybgalkeeda isla markaana ay isku beel yihiin Qorqor ayaa cadeeyay inuu u tanaasulay una hambaliyeenayo Qorqor, anigoo hoosta ka xariiqaya inaysan marnaba dowladda federaalka wax tanaasul ah ka sameyn qodob walba oo la isku qabtay muddadii Galmudug la dhisayay ayaa haddana sidii caadada noo ahayd waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo inaan ku dul shaqeeyo natiijadii maalin ka hor ka soo baxday Dhuusamareeb una tanaasulo danta guud ee reer Galmudug ayuu qoraalkiisa ku yiri Kamaal Guutaale. xildhibaanada ka soo jeeda Puntland ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadal kulul ka soo saaray hadal dhawaan ka soo yeeray wasiir Cabdulaahi Goodax ka uu ku weerarayay maamulka Puntland. xildhibaanada golaha shacabka ku matala deegaanada Puntland oo kulan iskugu yimid ayaa waxay kaga hadleen khilaafka ka dhaxeeya wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka Puntland. mudanayaashan warbaahinta la hadlay kulankooda kadib ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xilligan uu xoogeystay khilaafka salka ku ay qaadista imtixaanaadka sanadeedka iyo bixinta shahaadada. xildhibaanada iyo senatarada ayaa sheegay in la xisaabtamayaan wasiir Goodax waajibkooda dastuuri ahna ka gudan doonaan. waxay sidoo kale tilmaameen inay arrintaani kala hadli doonaan madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa duray mas'uuliyadda wasiir Goodax iyagoo sheegay inuusan qaadi karin xilkaas culus oo aan isku keeni karin Soomaalidii kala tagtay, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka inay arrintan soo farageliyaan. maray hadlayeen waxay yiraahdeen waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyay ee hutiira aan ku galay wasaaradda Puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dowladda dhexe ee federaalka iyo xildhibaano iyo wasiiro dowladda dhexe ka tirsan ee ka soo jeeda deegaan doorashadaas ee Puntland. waxaanu halkaas ku gabagabaynay sanadkii hore ardada shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaan loo siiyaa shahaadada ardadii sanadkii hore ka baxday. waxaanu ku ballansanayn wasiirka iyo wasaaraddiisa ragga ee wasiirada la shaqeeyaba oo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha iyagoo goobjoog ah inaanu annagoo xildhibaanaa oo wasiirna nagu jiraan aanu Puntland tagno inta yar ee khilaafkaana aanu dhammayno intaan la gaarin teeramka dambe imtixaanka dambe ardada dambe ee sanadka dambe u baahan shahaadada. arrintaas waxay noo ahayd arrin noo taagan. waxaanu rabnay hadda inaanu ku baxno Puntland oo aanu tagno. waxaanu rabnay inaanu soo dhammayno intii yareed ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayayna noo maraysay. wasiir Goodax ayaa degdegay. anugu horey baan u idhi waa meelaan rabay ruumaygu eriyey. waxaan rabaa ardada Puntland inaan ugu baaqo annaguna xildhibaana ka ahaan mayno dowladda dhexe, idinkuna shahaado waa imisaan. taa horta qalbiga gashada, niyadda gashada ku dega. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda dalku labadooda ayay si gaar ah u saaran tahay. lama siyaasadayn karo, looma isticmaali karo awoodda qaranka, laguma dhibaatayn karo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. arrintaani marka go'aankeeda iyo taladeeda iyo wax ka qabadkeeda waxaa laga sugayaa oo ay u taallaa madaxda qaranka. iyagaa laga rabaa inay arrintan tilaabo cad ka qaadaan, go'aan ka gaaraan. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Halkudhig News. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe.